السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام هذا صاحبي وحنا هاي عمر محمد علي هلكا وكلمية برايفت سكول يو 10 كيني مانتا كسر هذا بوك 1 أيام كجرنا هدي بوك 1 أنا جيب ستينا ووركا وكون أكسنت هاي أو واحد لصباح ذا بوجا نبيتك أفر توان لصباح هدي هوريد وهي ستبوجا هذا هوري وهي سنين فضلا كسر البو هذا بوك 1 أيام ودنا ولي 10 كينا وحنا مرينا بوك 1 lesson 44 أيام قادنا إن مانتا يوف lesson wali waxaan qaadanaa 43 de 10ka 43 aan qaadanayna sidoo kale lesson 44 10ka 44 aan ku sii daraynaa laba 10 ayaa marka miiska noo saaran maanta oo halkan aan kugu soo gudbin doonaa hadaba intaan u guda galin muuqaalkan fadlan like sar ayaan ku xasuusinayaa subscribe ma dhahday oo ma ku xiran tahay kanalka kulmiye private school si ay ku soo gaaraan muuqaalo tayo sare leh iyo waliba muuqaalo maalin walba ay cusub yihiin hadaba ku soo dhawow ila daabo muuqaalkan xiga hal mar waxaa la marayaa sanadka 2025 ولينا ماذا بران لغة إنجليزية هذا بعدين إنه هاي بعض الكلمية برايفت سكول وحنا بحنا كورس إنجليش أو لو قادن دونه لما هيرك لغة إنجليزية سيدا ليفل 1 أو هيرك كواد وحنا تكون بران دون تهيركني بوك 1 إنجليش بوك 2 إنجليش basic vocabularies book level 2 أو عنكو قد يارني بوك تكلا intermediate English book Revine English book intermediate vocabulary book level 3 أو هيرك سدحات أو أتو قادن دونته بوك تكلا basic English grammar topic English book phrasal verbs English book hadaba hadii aad doonayso sanadkan aad luqada Ingiriisiga aad barato waliba hab online ah adigoo gurigaaga jooga buugaagtani waxaan kugu soo diraynaa WhatsApp kaaga casharadana waxaad u qaadan doontaa group Telegram hadaba hadii aad diyaar u tahay inaad luqada Ingiriisiga barato sanadka 2025 inta lagu guda jiro waxaan ku diyaarinay koorskan ka kooban 3 heer ee luqada Ingiriisiga buugaagta aan ku diyaarinayna waxaad ku helaysaa oo kugu soo diri doonaa WhatsApp kaaga adigoo ku helayo casharada buugaagtanina Telegramka hadaba hadii aad doonayso inaad sanadkan iska dhisto luqada Ingiriisiga fadlan hamoogan kulmiye private school oo bixinayo kooraskani luqada Ingiriisiga waliba hab free adigoo ku heli doona soo booqo numberka shashada kaaga muuqda hadaba no more waatahay hadii muuqaalka soo daabatay casharkeena bilaabena waxaana ugu horeeya casharka marka lesson 43 oo ah casharka 43 horta waa book 1 buugeena waa book 1 lesson 43 casharkan waa 43 waxaan ku baran doonaa casharkan when aan baran doonaa when oo ah goorma hadaba u fiirso when waa maxay goorma ayaa lagu baran doonaa page-ka la soo baxayso ardayaho waa page-ka 14aad waxaan la hadlayaa qof alaala qofkii haysto buugaan ee book 1 hadaba when waa goorma marka qofku leedahay hadaba waan fahmaynaa marka casharka u guda galno casharkan waxa ku sheekaysan doona Ali iyo ninka la orange ninka la yiraahdo Abdi labadan qofood naguma cusba mar walbana way isla sheekaystaan hadaba Ali baa hadalka bilaabaya Alina su'aal kasto dad uu weydiinayo wuxuu ka bilaabi doonaa when ayuu ka bilaabi doonaa oo fiirso ardayahow mar walba waxa sabuurda noo saaran aan ka hadlayno ayaa su'aashan lagu beegsan doonaa when ba lagu bilaabi doonaa su'aal kasta Ali wuxuu yiri when do you enter your period when do you enter your period goorma ayaad gashaa adiga xiisadaada when goorma do you enter ayaad gashaa your period xiisadaada goormaad gashaa period waa maxay fasal inaad gasho oo cashar qaadato xiisad way taas ay xiisad loo yaqaana when do you enter goormaad gashaa your period xiisadaada goormaad qaadata waana xiisad ama jaamacad gal ama school gal ama college gal ama dugsiga gal oo quraanka ama online ku baro xiisada ku jirta ama Abdi wuxuu yiri I enter my period at 7 in the morning I enter waxaan galaa my period xiisadayda waxaan galaa at 7 in the morning todobada subax ayaan galaa todobada subaxnimo ayaan galaa macnaha waxa la jeedaa hal saac subaxnimo aan galaa I enter my period xiisadayda waxaan galaa at 7 in the morning todobada ama waxaan galaa subaxnimo ayaan galaa oo hal saac subaxnimo ayaan galaa xiisadayda Ali wuxuu yiri isaga when do you come out goormaad ka soo baxdaa your period xiisadaada goormaad ka soo baxdaa come out waa maxay ka soo bixitaan waa ka soo faaruqid okay when do you come out goormaad ka soo baxdaa your period xiisadaada goormaad ka soo baxdaa Abdi markaasuu yiri I come out waxaan ka soo baxaa my period xiisadayda at 8 in the morning 8 subaxnimo ayaan ka soo baxaa 8 subaxnimo ayaan ka soo baxaa oo 2 saac subaxnimo ayaa loo jeedaa marka when do you okay when do you eat your breakfast buu leeyahay Abdi waa marka when do you eat goormaad cuntaa your breakfast quraacdaada goormaad cuntaa when do you eat goormaad cuntaa your breakfast quraacdaada breakfast waa quraaco
when do you eat goormaad cuntaa your breakfast quraacdaada abdi markaas wuxuu yiri I eat waxaan cunaa my breakfast quraacdayda at 8:15 waxaan cunaa 8 subax oo rubi ah 8 subax oo rubi la jira ayaan cunaa I eat my breakfast waxaan cunaa quraacdayda at 8:15 8 oo subaxnimo ah oo la socda la jiro nus ama la socda rubi la socda ayaan cunaa Ali markaas su'aal kala weydiiyay wuxuu yiri when do you eat your supper when do you eat your supper goormaad cuntaa cashadaada supper waa casho okay dinner casho waaye supper waa casho when do you eat goormaad cuntaa your supper quraacdaada cashadaada de supper cashadaada goormaad cuntaa abdi markaas wuxuu yiri I eat waxaan cunaa my supper cashadayda at 8:30 laba saac ama 8 oo 8 iyo bar oo habeenimo ah ayaan cunaa I eat my supper waxaan casheeyaa oo cashadaydu cunaa at 8:30 8 habeenimo iyo bar okay 8 iyo bar oo habeenimo ah ayaan cunaa buu yiri okay casharkeena 44 aan u gudubno casharka 44 waa ka book 1 waaye lesson 44 casharkii 44 maxaan ku baranaynaa why ayaan baranaynaa why sabab dad badan arkaysa maanta marka wax ku sameeyso why ay ku leeyihiin sabab ayaa loo jeedaa sabab ayaan baranaynaa sida loo yiraahdo marka page kana waa 14 uun Ali iyo hadan abdi ayaa waliba nolol socda Ali wuxuu yiri why do the students go to school every day sidaas oo akhri why do the students go to school every day why sababteeba do the students ardayda go ayu aadaan to schoolka every day maalin walba ninka sabab ala weydiis sababkeen why do the students maxay ardaydu go ayu aadaan to school u aadaan every day maalin walba arday ba socota oo book wata bal maalin walba schoolka maxay u aadaan ardayda abdi wuxuu yiri because maxaa yeelay they want waxay doonayaan ardayda to get inay helaan knowledge aqoon inay helaan bay doonayaan Ali wuxuu yiri isagana why do the students maxay ardaydu want ay u doonayaan to get inay helaan knowledge aqoon inay helaan ardaydu maxay u doonayaan abdi markaas wuxuu yiri because maxaa yeelay hadana knowledge aqoontu is important waa muhiim for people's lives nolosha dadka ayay muhiim u tahay okay Ali markaas wuxuu yiri why do the people eat food and drink water why do the people maxay dadka eat ay u cunaan food cunno ay u cunaan dadka maxay raashin ama cunto ay u cunaan and drink ayna u cabaan water biyo ay u cabaan water ama water isku mid water ay biyo u cabaan okay ama water ay biyo u cabaan abdi markaas oo yiri because maxaa yeelay they want waxay doonayaan dadka waxay rabaan to live inay noolaadaan they want waxay doonayaan dadka to live inay noolaadaan and be healthy oo ayna caafimaad lahaadaan Ali markaas wuxuu yiri why do the people build a house maxay dadku build ay u dhistaan a house guri ay u dhistaan why do the people maxay dadku build ay u dhistaan a house guri dadka maxay guri u dhistaan iyaga abdi markaas wuxuu yiri because maxaa yeelay they want waxay doonayaan to get inay helaan dadka shelter hoy inay ka helaan from heat kuleelka of the day ee maalintii kuleelka maalintii meel ay ka galaan oo hoy kaga dhigtaan ayay doonayaan dadka and the cool iyo qabowga of the night ee habeenkii kuleel ee qabowga habeenkii jirana inay ka helaan markaasi deganaan iyo markaasi ay ka helaan meel ay kaga hoydaan ay u baahan yihiin sida ayna guriyaha u dhistaan hadaba halkaas ku soo afmeeraya buugeena buugwan qofkii buugan aw heystana waa uu sidaan ayuu marka casharada ugu la socdaa halkan baan maraynaa qofka aan haysanina numberka WhatsApp-ka la imaaw ee halka kaaga muuqda si buugan lagu caabiyo ama course English oo dhameystiranba waana ku mahadsantiin amaankiin